Ayaay magacaabistii Madaale waxa ay abuurtay xasarad iyo dhilo colaadeed oo Muqdisho ka taagan. Galmaax Yunis markan waxa ay la soo baxeen hubkooda iyagoo dagaal diyaar u ah. Waa halbeega wararka iyo warbixin degdeg ah oo aan ku eegi doono shir Muqdisho uga socday xildhibaano wakiilka Sheekh Maxamuud iyo saraakiisha iyo waxgaradka beesha Galmaax oo ugu dambeyn ku soo dhamaaday fashil iyo safgaran waa Ruusi ka bilowday caasimadda Muqdisho. Galmaax Yunis oo markan diyaar u ah in dagaal ay caasimadda ka horiso. Warbixinteenan ayaan saaxiibayaal ku eegaynaa, balse marka hore sii share garee muuqaalkan oo leegna saar. Kuna soo biir boggeena Facebook ee halbeega wararka si aad ula socoto xogaha iyo muuqaalada halkan aynu ku baahino. Waa hagaag aynu ku horeyne. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa aad u qasan kadib markii uu muran weyn abuuray magacaabista gudoomiyaha gobolka ee Madaale. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaano iyo siyaasiyiin ergaa u diray beesha Galmaax Yunis xilli xaaladdu ay fashil ku soo dhamaatay. Waxaa soo fashilmay kulan u socday siyaasiyiinta, odayaasha iyo saraakiisha ciidan ee beesha Galmaax Yunis iyo xildhibaano ka wakiil ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kulanka oo ka dhacay guriga Xaadoole ee degmada Kaaraan ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ay ka mid ahaayeen Korneel Masile iyo Yaasiin Geedi oo ka soo jeeda beesha Galmaax iyo xildhibaan Yaasiin Farey iyo Maxamed Cajiib oo sida la sheegay uu soo diray Xasan Sheekh Maxamuud kuna beel ah. Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu isku dayayo inuu dejiyo xiisada ka dhalatay magacaabista gudoomiyaha gobolka Banaadir oo uu shalay u magacaabay Yuusuf Madaale kadib markii uu ka baxay ballan uu horey uga qaaday beesha Galmaax oo tan ugu badan ee degta gobolka Banaadir. Xaalka ayaa markan isbedelaya. Saraakiisha iyo ciidanka Galmaax oo ah kuwii ugu badnaa ee badbaado qaran ee Xasan Sheekh Maxamuud ku difaacay Minraayo markii uu farmaajo ku weeraray kana hortagay muddo kororsiga ayaa ku hanjabaya inay xuquuqdooda ku dhacsan doonaan xabad. Korneel Masile, Yaasiin Geedi iyo Xaadoole ayaa la rumaysan yahay inay heesaan boqolaal ciidan iyo boqolaal gawaarida dagaalka ah, taasoo cabsi gelisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xog uu helay halbeega wararka waxa ay sheegaysaa in madaxweyne Xasan Sheekh uu markii ugu horreysay telefoon kula hadlay xildhibaan Xaadoole kadib markii uu xiisad dareemay inkastoo tan iyo markii la doortay uu diidanaa in Xaadoole uu la kulmo. Kasoo in Xasan Sheekh uu xil gudoomiyaha gobolka siiyay beesha Daawud oo ah seediyaashiis, haddana waxaa la sheegay in odayaasha iyo saraakiisha Galmaax ka careysan yihiin hadal laga soo xigtay Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa inuu yiri Galmaax kuma jiro inuu qalma inuu gobolka hogaamiyo. Xasan oo siyaasadda dawladdiisa ku sheegay Soomaaliya heshiis dunida heshiis la ah ayaa hadda maraysa in abgaalkii uu ka dhashay ay dhexdooda dagaal qarka u saaran yihiin. Maamul goboleedyada dalkana uu mar hore la dagaalay wixii ka soo baxay ama kulankaasina wuxuu noqday mid fashil ah. Xaadoole iyo sidoo kale Masile ayaa hadda u diyaar garoobaya dagaal toos oo ay la gelayaan villa Soomaaliya. Odayaashii kale ee Mudullood ayaa markan la soo kiciyay si xaaladdu ay u dhexdhexaadiyaan, balse Galmaax ayaa ku adkaysanaysa in gudoomiyaha gobolka in la siiyo mooyee si kale aysan ku degaynin. Balse Xasan Sheekh ayaa markan isna dalbaday in Galmaax uu siinayo safiir micno leh oo ay iska dhaafaan gobolka. Qir iyo qir ayaa la kala taagan yahay. Ruusi ayaa ka bilowday Kaaraan, Dharkiinley iyo Wadajir, iyadoo markan ay u muuqato in Galmaax ay dagaal ku raadinayaan xaqa uga maqan gobolka Banaadir. Xasan Sheekh Maxamuudna wuu fashilmayaa halayskiisii dawladda, dibna waxay ka bixi laadahay dawladdiisu khilaaf iyo in madaxa ay isu geliso beelaha wada dhashay. Mudullood dhexdooda ayay markan ka tafan tahay. beelihii kale iyo maamuladii kalena Xasan Sheekh Maxamuud waa ay kala yardhoobeen. Xaaladuna waa allow sahal umuuraha. Muqdisho mar kale waxa ay fulanaysaa dhilo colaadeed iyo sidoo kale saansaan dagaal haddii alle uusan u bixin shacabkan dhiban ee caasimadda oo dushooda lagu dul hardamayo. Daawade fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta commentiga tan iyo kulan dambe nabadgelyo.